السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أو كيف يسوي شيء وعلى كان سوون مع سبعان أو ليبا أو ليبا تركوسيا وصلنا مؤكدة يعني سوون مع سيدا معلوم عليها واحد ولا سوون الجديد هذا إن أيضا سيدا أو كيف شيء أو أما وعي جديد أما خصوصين هذا وما أي مارة سياس يا أبو راسنا هاي وبنات ناس أو رشة يا أبو ناجا كليه وعنا وعنا أشوف شأنه رحت أقول لك محمد بن هادو هي كوالعس وعيد على جدك وأنا سنين وهو وأنا سنين الراعو هي راعين ويسكن وشكستن حتى لو وحيد وأن قال إن الأهل كودي يقرأ بدوني أي أميسيان oo marka la isku dhigay inta ummadu waxay soo timaado halka anagu bariga hore aan cagaaran ay jirnaa waqtiga maxay jirnaa cagaaran meel ay jirnaa halka haasan ku dhigay jirnay waa laga fiican yahay oo hadda in laga fiican yahay isku hayso jidka wanaagsan oo la wada qaatay loona badan yahay oo loo gudbayo xagga masaafada ku badan ay jirnaa cagaaran iyo meesha la doodi halkaas la yidhi waxaa ka wanaagsan jidka wanaagsan oo ilmaha ka qaadeen kaasoo dhalinyarada in asaas loo wada qaato waa wax wanaaga aad adag u jecel yahay sababtoo intaa ummadu oo maanta isku timid waxay ogaanayaan wanaagga la isugu yimid intaa ummada hay hadda gabadha wiilkaas ay kulmiyaan oo qofku meel ka soo gashay oo inay timaado oo wanaagga u timaado qof meel ka timid waa kale culuso waxaan isku muddaas nadeen wiilka iyo waqtigiisii anigana wadaadka gabadha dhalay iyo wadaadkan oo mas-uulka ka ah ayaa noo saaxiib laha nicam gaalna waa maxaa marka dadku saas isugu xiran dadku saas isugu xirmayaan meel kasta laga imaanaya waa la isdhexgelaya marka walaalayaal ninka maxamed alakhaan laas iyo gabadhaas wuxuu waa soo dhamaysteen dowlis maana maanta adiga gabadhan hebel ka doona lamale wuxuu waa ninka soo nadaamsadeen waa soo qorsadeen marka kaliya wadaadka shacabka naasir oo aabihii oo ku soo yiri adaa iga wakiil ay ku nikahay kaliya hal rabaa iyo culimadii aan isugu sino wax kale hadda maanta leeyahay hebel gabadha si oo iyo heblo iyo soo doonasho iyo heblo iyo hadda ma jirta intaas waa soo gudbi inta taariikh lagu ahaado aan nikaxaas sida waa soo sheegay أنا جيسنو ناس لا تهاي وأنا ما فيتي مع كوليجي شعب ناس. عليكم السلام ورحمة الله.